Asalaamu calaykum asxaabta, maanta waxaan sameysanaynaa dessert yar oo fudud. Waxaan u baahan tahay hal galaas oo liin balmeelmo ah, waa orange juice. Halkaasaan ku shubanaynaa digsiga. Hal galaas oo orange juice waaye. Waxaa ku darsanaysaa 2 qaado oo sokor ah. Sokorta kama badinaysid. Iyo custard powder waaye kan 2 qaado. intaas hadda isku qasanaynaa intaadan dabka geynin. wax yar aan soo karkarin doonaa, laakiin inta ka hor si fiican isku dhex gelinaysaa. haddana dabkii baanu saaranay. saawa inuu soo karkaro, saa soo qabsado waa adkaanaya. hadda waa diyaar. hadda waan ka diminayaa. haddana halkan waxaan ku haystaa hal galaas oo caano ah. hal galaas oo caano ku shubtay halkan hadda. iyo 2 qaado sokor. qiyaasta midka cad iyo midka orange-ka waa isku mid. haddana waxaan ku darayaa cornstarch ama warango, hadba dadku say u yaqaanaan. intaas haddana isku qasanaynaa. ayadana sidii hadda camal waaye. dabkan soo saaranayaa. markay saa usoo karkartay, saa usoo qabsataa ka dejinaysaa. hadda waa diyaar. halkana waxaa waaye kii caddaa iyo kii orange-ka. glassaan kusoo shubtay. baaquligan aan ku diyaarsanayaa marka. marba in yaraa ku shubaysaa. kan orange-ka u hormarinay, kan caddaanka ku xindhijinaysaa. sasaan kusoo wadayaa kulli ilaa uu ka dhamaado. qasab maaha inaa sintid. midka yare waa inuu, midka dhexe waa inuu yaraadaa, orange-ka u badnaada. saasaa ugu shushubanaysaa marba in yariis ah. qaadada haddaa rabtid waa ku cabiran kartaa. hal qaado haddaa rabtid waa ugu shuban kartaa marba. saasaan kusoo waday haddana. kulli marka wixii yar ku soo haro saasaa ugu balaarinaysaa saxanka dhan. midda caddeeda hoos marinaysaa, orange-kiga kor soo maraayo. fridge-ka gelinaysaa ilaa 2 saac 1 saac bar. haddana waa kana
saanu noogu soo baxay maasha Allah quruxda badan ka faa'iideysi wacan asxaabta.